السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرا مرة سلامتي سيد وضد عندنا 10 كلمات وحو كسبتين سيدي ما أسمي كرنا يعني next iyo preview iyo next heesteenii hore iyo heesta xigta. haddaba markaa waxaan kusoo laabanaynaa waa koodkeenii. okay, haddaan dib u galno meesheenii ahayd indexigeenii waxaa jiro waxaa loo yaqaano preview oo on click aan ku darnay preview. haddaba aan sii gudagalna mideedii kale casharadan anaga aan ka hadlayno badanaa waxyaabaha kaga hadlaynaa waxaa ka mid ah yacni qofka inuu fahmo waxaa muhiimadda ay tahay in waxa anaga aan isticmaalayna ama qaababkaan u isticmaalayna si uu qofka uusan uga baahan. yacni tusaaleaan haddaad baratay music app berita haddana ka waran haddaad raadinaysid yacni video app okay oo isku wada mid ah, taasi waxaan dhihi karaa yacni wax maaragtay qofkii yacni asagaan dadaal muujinayn. sidaa ay tahay maaragtay isla channelkani ama playlistigani waan kaga hadli doonaa oo maaragtay yacni qaababku u shaqeeyo anagoo maaragtay edit ku samayn doono, laakiin si toos uma soo samayn doono hadda kadib. yacni isla musican oo kale music appkan oo kale oo haddana video app ah oo yacni videogii laba bedeli karo. okay, haddaba waxaan muhiimadda halkana waxay tahay qofka inuu fahmo wax walba siday u shaqeeyaan. haddaba halkaasi baan tagaynaa si aan listi badan u sameyno. haddaba halkaasi markaad joogtid arraygaasi halkaa waxaan leenahay comma, waxaan leenahay sidoo kale comma baan leenahay, midda ugu dambeysa comma looma baahna. haddaba halkaa waxaan ku haysanaa waa 4 haysood baan ku haysanaa. haysta labaad maaragtay waxaan bedelaynaa waa backgroundiga, sidoo kale haddana waxaan bedelaynaa waa cinwaankii oo waxaan ka dhigaynaa halkan imow. waxaan haysanaa xamisaki, kadibna soo koobi garay halkan imow. haddaad qori kartidna waad qori kartaa, haddii aadan qorin karin waxaad ku sameynaysaa waa mp3gaan ka qaadaynaa. waxaan leenahay waa heestii allah kaa dhigay. okay, allah kaa dhigay wuxuu alla kaa dhigay kulley waa taqaanaa. aan sii gudagalno fanaanku waa isla axmed saki oo waxaan leenahay waa axmed saki. okay, halkaa ee aan ka dhigno capital ah. haddaba heesta waa halkan waan soo koobi garaysanay mar hore oo waxaan ku post garaynaynaa waa inta, midaasina waxay ku saabsan tahay waa axmed saki. okay, haddaba waxaan soo gudagalaynaa qaybteenii heesta saddexaad. maaragtay waxaan bedelaynaa waa imageka waxaan leenahay 3 ka dhig. imageka waa meeshaasina waa inaad sheegaraysaa waa gbg waa isku wada mid. okay, heesta kale waxay ku saabsan tahay waa baashi oo waxaan leenahay baashi baan soo koobi garay halkan imow oo waxaad ka dhigtaa meeshan waa inay ahaataa baashi heesta magaceedii cinwaankeedii. fanaanku waa kee maaragtay waa kooxda gaarisa siday ila tahay, ma hubin laakiin waa siday ila tahay. okay, haddaba halkaasina baashi waa mp3 sida dalka ku aragtaan. hooyo waan kasoo gudubnay. haddaba halkan aan imaano oo waxaan leenahay okay, halkaa qaybta koowaad xitaa waxaan ka bedelinaa waa imageka ma aqaani kaliya qodkaan kasoo dejiyey. aan sii gudagalno waxaan leenahay background 1. okay, background 2. okay, background 2 sidoo kale waxaan soo qaadanaynaa waa meesha kale ee baashina sidoo kale background 3. background 2 sida dalka ku aragtaan baa raacsan waa jpeg. okay, ha ilaawin meesha haddii kale wixii ma shaqeynayaan. 3 sidaasuu ku baxay. midda afaraad baa inoo harsan. midka afaraad markaa waxaan leenahay background 4.gbg sida ila tahay wuu toosiyay hadda. haddaba heesta kale waxaan leenahay waa nimcaan. heesta nimcaan baan soo qaadanaynaa. halka aan imaano na soo koobi garay. heestu waxay tahay lama yaqaan, laakiin waxaan leenahay waa heestii nimcaan. halkan waa nimcaan. okay, fanaanka magaciisii. halkaana markaa waxaan leenahay
heestii baan markaa halka ku save garinaynaa waa mp3 sida dalka ku warataan. okay haddaba browserkeeni aan kusoo laabano waxaana isbedelaan marka hore. okay sida dalka ku warataan sawirkii wixii bay isbedeleen. haddaba heestaasaan qaybtii ugu horeysa marka waxaan kaga hadlaynaa waa previous. waxaad soo qaadanaysaa waa function oo waxaad siinaysaa waa preview gudihiis markaa waxaan leenahay if iyo else baan soo qaadanaynaa. haddii waxaan leenahay tiradu waa tiradu waa halka waxa halka ku jiro idil waa heesooyinkan oo idil baan ka hadlaynaa. okay waad fahmi kartaan hadda sida ay tahay muhiimadda tirada iyo faa'iidada ay leedahay. tirada hadday ka badan tahay ama ay la eg tahay baan leenahay hal waa inaan ka jirnaa. okay waa inaan tiradu waa inay ka jirtaa dash minus taasina macnaheedu waxay tahay waa ka jira hal. waa adigoo dhahayo kale sidaa iyo sidaa samee adigoo dhahayo kale waa inaad ka jirtaa tiradii. okay hal ka jiro midda ma fahanteen. haddaba markaa waxaan leenahay good oo waxaan leenahay oo ka shaqaysii tirada. sidoo kale waxaan leenahay play has. sababtan play has u isticmaalayno kolley waad fahmi kartaan. play has waxay leedahay waa functionkaasina wuxuu gacanta ku hayaa waa daaristii haysta. okay waa halkan waa daaristii haysta. taasi macnaheedu waxay tahay play song waa mid run ah oo wixii way shaqeynayaan. okay haddaba kaliya waxaad u baahan tahay waa functionkaasi waa recall function adigoo sameynayo kale waa adigoo dhahayo dib u laabo oo waxaad soo raadaysaa oo waxaad dib usoo qaadataa play hayse functionkaasi oo markaa asagana gacanta ku hayo daaristii haysta. haddaba halkaan baan imaanaynaa. hadday middaa dhici weydo maxaa dhacayo marka waxaan leenahay tiradu waxay la eg tahay markaa wax welibo dhammaan heesooyinka idil dot length wixii gudaheeda ku jiro idil oo tiro ah dhan way la wada eg tahay. haddaba halkaan kusoo laaban oo waxaan leenahay sidoo kale play has oo heestii wayna daalantaa marka anaga previous markaa taabano oo markaa sidaa baan leenahay. sidoo kale waxaan leenahay good oo ka shaqaysii waxaanaga markaan u baahannahay ee ah tirada. halkaan kusoo laabano haddana browserkeeni aan kusoo laabano sida dalka ku arki doontaan. next sida dalka ku aragtaan kulley waad fahmi kartaan waxayna sidaas bay u shaqeynayaan. haddaba aan kusoo laabano qaybteenii next haddaba intaa fahantay intaana soo koobi garanaysaa halkaan aad imanaysaa oo waxaan leenahay halkaa ku save garay meeshii functionkaasina wuxuu noqonayaa waa next ila next baan haysanay badhanka kale oo waxaan leenahay halkaa tirada hadday ka badan tahay ka yar tahay ama ay la eg tahay dhammaan dot length hadday la eg tahay waxaan ka hadlayna waa midda ilan waxaan leenahay halkaa haddii tirada markaa yacni ay ka badan tahay ama ay ka yar tahay hal ka jar. haddii taa aysan ahaynna oo waxay la mid noqonaysaa meeshii badhanka markuu riixo wixii tirada ku jiro iyo idil. haddaba halkaa waxaan leenahay hadday tirada yacni ay ka yar tahay ama ay la eg tahay haddii markaa laga jaro hal oo yaa ka jaray hal oo waxaa ka jaray waa badhankaasi. okay hadduusan ka jarinna tirada ilan anaga waxaan haysanaa waa 0 1 2 3. okay marka tiradii baan dib ugu sii laabanaynaa ee ahayd midii ugu dambeysay ee number 5 oo kale tirada midii u dambeysay. haddaba halkaa waxaan leenahay marka haddii tirada ay ka yar tahay ama ay la eg tahay dot length oo laga jaray hal. okay tiradu waa inay la mid ahaataa markaa mid lagu daray hal waa inay hal ku darsoomaa. tiradu waa inuu hal ku darsoomaa hal dheeriya. haddaba waxaan leenahay good oo ka shaqaysii ah sidoo kale heestan waa inay daalantaa. haddaba halkaan baan kusoo laabanaynaa. hadday bidaa dhici weydo marka maxaan leenahay tiradu waa inay la mid ahaataa 0 mid eber ah wuxuuna ku laabanayaa waa arrayga 0 dib uga soo bilaabay. haddaba halkaan kusoo laabano aan check garayno previous wuu shaqeeyey. haddaba next allah ka dhigaya allah sida dalka ku aragtaan wixii
sidaasi bay noqonayaan. haddaba waxaan rajeynaya inaad fahanteen. haddana casharkani meesha baan kusii bixin hadduu alla idmo insha allah. wixii dheeriyo marka aan kusii dari doonana waan arki doonaa hadduu alla idmo insha allah. qofkii rabo marka inuu application ka dhigtana wuu ka dhigan karaa, waana si fudud oo wuxuu leeyahay folderku kusoo laabanaya oo wuxuu sameynayaa waa music app. okay, sidaad u sameyn kartaa music app, halkani baad imaanaysaa oo waxaad leedahay halkan soo gal, kadibna waxaad ku dul furaysaa waa meesha notepad. laptopyada qaar kuma shaqeeyo dhanka systemka xaggoodiya. haddaba halkani baad imaanaysaa, isla meeshan baad ku save garaynaysaa. isla applicationkana waxaan leenahay music app. sidoo kale markaa waxaan leenahay .hta, halkan ka dhiilahayna html, halkana waa inaad dhahdaa all files, kadibna waad save garaynaysaa. halkanaad imaanaysaa, kadibna music appkaasaad furaysaa. aniga haddii ma shaqeynaya sida ila tahay dhanka systemkeygii, yani meel kalan ku jira, waxyaabo badan baa iga xirxiran. haddaba markaa wuu ku shaqeynayaa applicationkaasi, waad isticmaali kartaa. desktop application waa wax aad iyo aad u fudud. sida ila tahay casharkan iyo waxyaabo badan baad ka faa'iideen. aan check gareyno, aan ku laabano refresh aan dhana marka hore, kadibna waxaan check gareynaynaa previous iyo next. sida dalka ku aragtaan hooyaan ka gudubnay, waan ka gudubnay, kadibna waan kusoo laabanay. haddaan ka gudbaynaa, haddana waan ku laabanaynaa. waa wax aad iyo aad u fudud. waxaan rajeynaya inaad waxyaabo badan ka faa'iideen. casharkan iyo casharka ku xigoo dheeriya haddii wax lagu sii darayo, marka idinka idinkugu xiranta haddii waxyaabo kala dhir lagu soo darayo ama tirado halkaa ku jirto kale inaad ogaato haddaa rabtid inta hayso in adiga aad haysatid inaad ogaato haddaa rabtid inta midda iyadana waad soo muujin kartaa. waxaasoo idil marka waa waxyaabo iska dheeriya, laakiin muhiimadu waa intaasi. waxaan rajeynayaa inaad waxyaabo badan ka faa'iideen. casharkan iyo casharada kale kusii xigi doono, sidaa iyo nabadgelyo.